qof la sheegay inuu isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa waxa uu isku qarxiyay gaari uu watay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimow. qaraxa lala eegtay afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimow ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka Makka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho, iyadoona afhayeenka xukuumadda qaraxaasi uu ka soo gaaray dhaawac isagoona loola cararay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala gudaha caasimadda Soomaaliya si xaaladiisa caafimaad halkaasi loogu dabiibo. laamaha ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan booliiska Soomaaliya war ay soo saareen ayaa waxa ay ku sheegeen in afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimow qaraxa kaliya uu ku dhaawacmay aysan jirin wax kale oo khasaare ah oo goobta ka dhashay, iyagoona sheegay in qaraxaasi si toos ah loola bartilmaameystay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimow. booliiska Soomaaliya ayaa qoraalkiisa sidoo kale waxa uu ku sheegay goobta inuu ku geeriyooday kaliya shakhsiga isku qarxiyay gaariga afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimow. waa sidii hadalka u dhigeen booliiska Soomaaliya. qaraxa lala eegtay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimow ayaa sidoo kale waxa ka warbixiyay qof goob jooga kana ag dhawaa goobta ay wax ka dhaceen, isagoona sharaxaad ka bixiyay sidee wax u dhaceen. halkan waxaa ka dhacay qarax waxaa ku dhintay dadna waa ku dhaawacmay. anigu geedkan hoostiisa ayaan marayay, geedkaa hoostiisaan marayay, waxaan iibsanayay nin go iibinayaan baayacayay. gaarigu si xawliyo meesha u galo qofna wuu ka laadlaaday. aragtideedii koowaad qof baa daaqadda haystay si xawliyana wadadu saas ugu galay. marka I don't know wuxuu ahaa kaas dhintay inuu ahaa iyo mid kale inuu ahaa ma aqaan. isla daqiiqadii jug baa nagu yeedhay, anigu cirkaas intay geysay dhulkay dhigtay qaraxii. wax ku dhintayna garan maayo, hilibkun baa nagaga soo daatay. marka waxaan leeyahay intii ku dhimatay Allah u naxariisto, intii ku dhaawacantayna Allah u boogadhayo. Soomaalina waxaan leeyahay war Soomaaliya dalkiina idinka leh dhibka ka daasta. waxa wax dhibaya waa Soomaali uma wax dhibaysa. Ilaahay ha u boogadhayo ummadii dhimatay, intii dhimatay Allah u naxariisto, intii dhaawacantay Allah u boogadhayo. magacaygu Daahir Maxamed Maxamuud. afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimow ayaa dhowr jeer oo hore waxa uu ka badbaaday dhaawac ka soo gaaray qaraxyo iyo sidoo kale weeraro lagu qaaday qaar ka mid ah hoteelada ku yaala gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. deeq macniciino Jakay, Sab TV, Muqdisho. qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya, islaam iyo fatwa? waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. soo qor fatwa ama islaam una dir 1 5 eber.